السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما doonaysaa inay noloshaadu noqoto mid degan xasilooni leh runtii wax walba aad ku guda jirtidna si firfircooni leh u qabsado. waxaan ka raali garanayaa inaan fiidiyowgan diyaar garow weyn aanan u gelin, laakiin in yar oo maskaxdayda ku soo dhacday ayaan damcay inaan la wadaago walaalaha mar walba aan fiidiyowada soo gudbiyo birta internetka aan saaxiibada ka nahay. kow horta nafsadaada waa in laga helaa inay naftaada u hoggaansantahay rabbigeeda, in maxaa la yiraahdaa rabbi aad mar walba raali garaysid kana shaqaysid wada allaala wadadii markaa iyada ah Allah subhanahu wa ta'ala ku dhaweynayso adna ku raali garayn kartid. waa inaad ka shaqaysaa, waa inaad xifdisaa shanta salaadood, waa inaad xifdidaa markaa iyada oon ahaatid macnaha mid qalbigiisa mar walba uu u hoggaansan yahay wanaaga iyo cibaadada alle. taa markay ka suurtowdo waxaa ku fududoon doono wax badan oo hadda aad moodid inay darbi adag uu ka soo sakeeyo. runtii haddii darbigaas dareel ama wax walba wax lagu duleeliyo isku dayid inaad ku duleelisidna aadan ku duleelin karin, balse marka aad cibaadada rabbi ilaahayna aad u hoggaansanatid ay noqon doonto mid markaa iyada ka jilacsan maxaa la yiraahdaa suufka ama daqiiqa oo kale burka iyo wax kasii jilacsan ba ay noqonayso. intaa markaa samaysid nafsadaada waxay gali doontaa xasilooni deganaan. habeenkii markaad gurigaaga timaadid waxaad ku seexan doontaa si degan oo markaa iyada aanan buuq lahayn qayle lahayn. runtii sidoo kale waxaa ku deeqi doonto inta yar aad heshid markaa iyada kaa soo gasho shaqooyinkaaga. waxay noqon doontaa in barakaysan oo maaraysan noloshaada qaybaheeda kala duwan, sida midda mustaqbalka iyo hiigsiga iyo waxyaalaha markaa iyada kaa dhex guuxaya inaad si fudud ku gaartid oo waxaad dhigatidna ay noqdaan wax barakaysan. wixii markaa iyada baahidaada kaleeta ee gaarka ah howlo maalmeedka ah danaha gaarkana ku kaafiyaan ama markaa iyada ku filnaatay noqon doontaa. taa marka ka soo gudubno sidoo kaleeta waxaad dareemaysaa xasilooni deganaan oo inside-ka ah gudaha. muhiimaddu waa gudaha qofka inuu ka dego, inuu noqdo qof markaa iyada xasiloon qabooban. waa aragtaa umaleynaa markii habeenkii oraxday dhacdo matoorada damaan ilaahay kuma darnaada mukeyfiyada la dan sida ciidi mukeyfil ciidi ka lahayn markaa iyada ah wax walba matoora buuqiisa uu dego. dabeeshana waxay gelaysaa jawi degan habeenka nisfiiska dambe. marka waxaad arkaysaa xasilooni tiro badan, shimbiro buuqaay male, gawaari qaylinaysa male, hoon male, wax guuxay male. anaad waxaa laga yaabaa ankii haddeer inay idin soo gaaraan dhawaqa shimbiraha, dhawaqa xayawaanka kaleeta, ariga, xoolaha, wax badan ee dariskayga ama meesha anigaan joogaba idin soo gaaraan. laakiin nafsadaada sida hadda aan kuu tilmaamayo habeenka naskiisa dambe nafsada qofka bilaadanka qaabkaas kaleeta u degaysaa markuu ilaahay raali gareeyo. sidoo kaleeta nafsadaada inay degta haddii aad rabtid waxaad iska dhowrtaa, iska ilaalisaa xaqa naaska. waxa dadka iska ilaali, wax allaala waxay noqdaanba waxa dadkaad iska ilaalinaysaa. waxaad ku dadaalaysaa keliya dhididkaaga inaad cuntid, waxaad ku dadaalaysaa keliya waqtigaaga inaad ka faa'iidaysatid, waxaad ku dadaalaysaa oo keliya waxa ugu wanaagsan oo ilaahay kuu dhaweynaya. اللهم إني أسألك هدى والتقى والعفاف والغنى. يا تعوين كاس وكلت وحي كتسايان إني عجيبهين وحداد كد عيستنا أيين دعوين كالنبي كسوغنا ذي. انت سيدو كلت واحد راعينيسا يانا وركو كوغو ديرينيني واحد راعينيسا إن مرول بابا قلبكاغا إي عربكاغا وسن كسولين ذكرك إلهي wuxuu kuu fududeyn doonaa inaad mar walba xaragiisa haysatid, inaad mar walba wax walbood raadin albaabka ugu wanaagsan aad ka wajahdid. waxay ahaan doontaa naftaada naf ogsan saacad walba in loo imaan karo, daqiiqad walba in loo imaan karo, naf xasuusan allihii uumay, naf markaa iyada gafka ee gasho isla markii iyadaba ka qoomamayso inaysan raalli ka ahayn rabbigeed mar walba u bandhigto, isagoo weliba kaa ogsan axwaashaada hoose iyo midaada kor.
naftaadu u tali. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fiidiyowga noo sharxay.